السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل حديث بان ربا inaan sheego oo ku saabsan runtii dumarka jirkooda qaawiya oo Facebook iyo aaladahan ku soo sawira. Xadiiskaasi gabadha muuminada qalbigeeda aad buu xanuujinaya oo in kuwaana qaadan kartaa. Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri wa nisaa'un kaasiyatun 'aliyatun مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم وأحمد. رسولك صلى الله عليه وسلم وحيري حديثك قيب كلا كهر الرئيسي لو وكو حوض أهل النار كميدا ولي ما أرق بيانو من الله كل من قيب تلا بعض وحي أهيد قيب هرات شكتيه دمر قاقاون ولبسن ولبسيهين وينقاويهين معنوه هو محي معنوه حويه شركودي وحدرو أكبر قشيهين لكن دركي ودر كل جن أو شركود الصورية أما شركودي هوس بكم موقنية أو لوتشي ده ومرضى خفيف كذي توك خفيف كي كبطي بالا أركيا شركي هوس لقى أركيا أما شركي قيب كمده بابا قاون أيس مرضي أستوريين بقى أرنتاس وأرن خطيرة وهوين قاقاون ودرنا قباه دربي قبان هدنا واقاوين حقيقة هوين كاسي مركا فيسبوك أنا أدبي وصابات أرنتا يميلهن على ذها إلهي هكبقان قبلها سيدا السميني وشركو دا مريها خفيف كأما كل دقن صوحرانيا أما بيتيسي صوصة ورقي الصوهر لقيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيرا هوين كاسو جندا مقليان أركيدنا ما بيهليان با أيضا جندا أدقيدا لقاها ميل أدفا وحيو كلو النبي صلى الله عليه وسلم هوين اللي أحسن dadkana leexinaya xaqay ka leexsan yihiin dadkana xaqay ka leexinayaan dumarkii kale fidneynayaan raggii bay fidneynayaan sinadii xumaantii bay ugu yeerayaan ama way isjabinayaan markay socsoconayaan madaxooda waxaad moodaa buu nabi sallallahu alayhi wasallam sida kuruska geela leexsan oo kale geela nooc bukhti loo yaqaan laba kurus leh kuruska meeshan geelu u leeyahay weeye oo dadka qaar kood waxa laga iska reebay magaalnimada inta aqoonin kurus tuur weeye geelu u leeyahay marka way leexsan tahay labada kurus mid baa yar oo saas u leexsan yahay marka waxaad moodaysaa ka asnimatil bukhtil maa'ila macnaha tintooda waxay saarayaan way buurayaan korbay u buurayaan burukooyini waxbay saa ugu rakibayaan ilaa madaxooda wax dheer uu noqdo oo tuur oo kala ah uu noqdo oo saa u leexsan ma garatay waa arrin marka ay qurux ka raadinayaan arrintaasna lama ogolaytay guriga ula soo baxaan oo banaan ka soo baxaan ay saa u xirtaan arrin muharrama oo la ogolayn weeye oo magaranaysaa nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri jannadana ma helayaan urkeeda mana galayaan jannada urkeeda iyo udugeeda iyo carfoonkeeda waxa laga helaa wax loo socdo inta riwaayadka qaar kood 500 oo sano loo socdo lafdi kale waxa ku soo aroortay il'anuhunna fa innahunna mal'unat haweenkaas nacalada way nacaladan yihiin macnaha ilaahay naxariista kaafiga ku dhaha marka walaalahayga muslimaadka ah khaasatan dumarka facebooka sawirradooda soo dhiga ilaahay ka cabsada naar ma xamili kartaan jannada yuusan ka xarimin sawir yar ah inuu jannada ilaahay ka xarimo waa dhibaato oo jirkaaga aad soo qaawiso ama magaalada markaa marisi jirkaaga aad qaawiso kaba dhaar dheer oo cirib dhaar dheer intay xirtaan jirkoodii ay muujiyaan oo boodboodaan ma garatay lama ogola arrintaa walaa yadribna biarjulihinna liyuclama maa yukhfiina min ziinatihinna baa ilaahay yidhi dhulka in gabdhuhu ay ku garaacaan lugaha si loo ogaado waxa ay qarinayaan oo quruxdooda ah khaasatan gabdhihii hore oo xiran jiray lugaha gashan jiray jishimo iyo waxaas oo kale lama ogola arrintaas ilaahay ka baqaan وتضرب يتبنجر وواحد كسير يوح مركاك وين وضمر برقبة حدنا قاوم بوير النبي صلى الله عليه وسلم نمعض الليل بسيهين شكر ذيك قاويهين درجس كودي إيا جسد كودي لنع بنيان لنع نوي قريان قبدا إيمان دون أي رسول كده صلى الله عليه وسلم ودر لأيهين حدنا دربي قبان درع بي وضطا صدر كذا لا دريمي كرا لا صفين كرا عدان إيا مذو إيا قدود وح الله لو وحا يهي وحا لا أركيا سلسلة إيا كتينة أحرم
waa dumar noocaas ah dadka ayay iilaan ayagana xaqay ka iila yihiin ummadday leexinayaan buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala waxay ka leexinayaan xaqa iyo taacada iyo diinta alleh raggii maanta in badan dumar baa fidneeyey waxayna ku fidneeyeen amarka allay qaadan waayeen waxay ku fidneeyeen xijaabkay labisan waayeen waxay ku fidneeyeen catar iyo barfuun ay bannaanka la soo baxeen waxay ku fidneeyeen hadal jajaban oo aad iyo aad u jilicsan waxay ku fidneeyeen wax allaala wixii cadaab alle lagu heli lahaa subxaana wa tacaala dumarow in badan xishooda war dumarow xaqii taacada alle ku dadaala mujtamaca dumar baa laga fiiriyaa hadday hagaagaan mujtamacu waa hagaagaa dumarku hadday xumaadaan mujtamaca intiisa kale way xumaadaan mucaawiya ibn abi sufyaan baa mimbarka nebiga ku istaagay baashaan burukaday dumarku qaataan buu gacanta ku qabtay wuxuu yidhi ahlalmadiina aaway culimadiinii war aawa dadkii xaqa dadka gaarsiinaayey war aawa dadkii diinka ilaahay dadka gaarsiinaayey baashaan markay dumarku yeeshaan ayaa la halaagaa rasuulkuna xadiis ayuu ku yidhi adduunku waa macaan yahay macaanka carabkaa jecel saad la socotaan adduunku wuu cagaaran yahay cagaarkana indhahaa jecel labadaba adduunkaa lagu soo kulmiyey ilaahay khaliif ayuu idinkaga dhigay asagoo raba inuu eega kayfa tacmaluun saad ugu camal qabanaysaan fattaqu ddunyaa wattaqu nnisaa warka cabsada adduunka dumarkana ka cabsada fidnadooda aad iyo aad uga cabsada war qabta in badan oo guryaha geliya war in badan u diida tabarrujkii safarka maxram la'aanta war in badan ha u oggolaanina inay bannaanka u soo baxaan ayagoon xijaabnayn war wax badan ha u oggolaanina inay meelaha fisqigaa aadaan war wax badan ha u oggolaanina waayo fidno tii ugu horaysay ee reer bani israa'iil ka dhacday dumarkay uga timid way isqaawiyeen sida kuwayna maanta isu qaawiyeen maxalla ayay samaysteen siday kuwayna maanta u sameeyeen aroosyay ka ciyaareen sida kuwaynay uga ciyaaraan buraanburo iyo waxaan qiimo badnayn bay diin ka dhigteen say kuwayna diin uga dhigteen in badan walaalayaal aad iyo aad u xakameeya naftiina in badan jalaabiibta islaamka qaata war aayad ilaahayoo magaalada maraysa noqda yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo kursigan ku fadhisa yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo bas raacaysa yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo fasal gelaysa ka soo baxaysa yudniina calayhinna min jalaabiibihinna la guursanaayo oo aqalkeeda loo sii kaxaynaayo yudniina calayhinna min jalaabiibihinna oo suuqaa ka adeeganaysa noqda walaalayaal in allaala intaad ku dadaashaan xijaabka ilaahay danihiina ku dadaalaa saad isu qaawisaan baa naarta lidinku qaawinaya saad diinta alla u nacdaan bay jannadu inii nacaysaa saad cadaabka iyo saad xumaanta iyo fisqiga iyo qaawanaashaa u jeclaataan yaa ibliis iyo shaytaan idin jeclaanayaa haddii kale rasuulku intaa wuxuu ku daray waa iilan yihiin xaqana dadkay ka iilayaan war ka warrama gabar ziina leh oo qurux leh oon jalbaab wadanin afka guduud marsatay dirac qafiifa ku socota ama surwaal iyo shaati wadata laamiga intay ku soo baxda raggu say noqonayaan walaalayaal sow ma arkin 7 jeer inay gadaal idin soo eegayaan sow ma arkin inay idin fiirinayaan waa maa'ilaad way iilan yihiin dadkiina xaqay ka iilayaan war sabab ha u noqonina ragga inay cadaab galaan war sabab u noqda raggu inay hanuunaan mar allaala marka jilbaabkeeda iyo xijaabkeeda iyo hanaankeeda iyo taacada allay ku dadaalaysa la arko yay malaa'igtu ku faraxdaa xasanaad loo qoraa rabbi jeclaadaa shaydaanku ka cararaa laakiin kuweenna maanta shaydaan baa saaxiib la'a war saaxiibnimada shaydaanka gooye xiriirka ilaahay hagaajiya sidaa darteed ayuu rasuulku intaa ku daray waxaad moodaa madaxooda ratiga geela ah ee baadiyaha daaqa kuruskiisa oo kale oo iilan wallaahi inay jannada alla galaan iska daaye xataa carafteeda heli maayaan buu dhahay sala allahu calayh wasalam naag walboon jilbaaban inay janno alla gasha daaye xataa udugeeda heli mayso naagtaan xijaabanin hooyadkeedu waa jahannamo tii xijaabka qaadan weysa alla agtiisa carray ku leedahay tii xijaabka qaadan weysa waxaa dhaxulla looga dhigayaa cadaabka mid allaala midda xijaabka qaadan weysa waxaa dacam looga dhigayaa dariic iyo zaquuma iyo geedaha alla tilmaamay subxaana wa tacaala waxa la cabsiinayo ay adduunka ku cabaysay sharaab buu ahaa laakiin dumarka kale
laakiin dumarka kale ee cadaabka la galay ee ilaahay subxaana wa tacaala xijaabkiisii inkiray oo diiday waxa ka yimaadeen dheecaan ah kaasaa sharaab looga dhigayaa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun rasuulka sala allahu calayhi wasalam dumarka in badan ayuu la hadlay waxyaabaha uu faray ee uu amray waxaa ka mid ah in xaqa iyo wanaagga lagu dadaalo in diinta ilaahay dhabnimo loo aamino in rabbi subxaana wa tacaala laga cabsado khayrka iyo wanaagga in aad iyo aad loogu socdo dumarku in allaala intay xijaaban yihiin bay khayr iyo wanaag u dhow yihiin ilaahay intaa markuu sheegay ayuu yidhi yudniina calayhinna min jalaabiibihinna waxaad iska soo raaricisaan dharka jalaabiibta lagu magacaabo moodeelada maanta soo baxay iska ilaaliya waxaad arkaysaa dhar aan xijaab ahayn oo ay dumarku xijaab ka dhiganayaan way soconaysaa way xijaaban tahay haddana gollonkeedaa bannaan way socotaa way xijaaban tahay horaadyadeedaa la arkaa way socotaa way xijaaban tahay barfuun baa ka soo carfaaya way socotaa way xijaaban tahay say sheeganayso haddana dharkii baa ku dheggan xaaladda noocaas ayaynan dhicin gabar walba oo ilaahay agtiisa khayr iyo wanaag ka rabtay daacada alle ku dadaal waad u jeeddaa nebi moxamed inuu janno leeyahay geli mayso waad u jeeddaa inuu leeyahay arki mayso uduga iyo carafka jannada 500 oo sano meel loo socdaa laga carfiyaa jannada intaasi waa qiimihiina iyo qaayihiina dumarkii maanta qaar baa ololaynaya waxay ku dadaalayaan oo ay u ololaynayaan waxay tahay xuquuqaadkeennii hanala siiyo war haddii ilaahay islaamkaa dhigoodan dibi caabudaynin war haddii laa ilaaha ila allah orahdaadu ay tahay war haddii moxamedun rasuulullah aadanka tegaynin mar kastoo xayi cala asalaad aad maqashaad salliga ku istaagayso war mar allaala markaad soo baxaysa haddaad jalbaab iyo xijaab ku soo baxayso haddii guriga laguugu asturee odaygaagii la amray inuu bannaanka ka soo kasbo meel allaala meeshuu geli karo xalaala uu galo qashinka la qaadaayo hadduu kaa qaado bannaanka laguu geeyo waxaad u baahan tahay oo kale maxaa waaye war xuquuqaadka dumarkuay raadinayaan maxay tahay ma in la qaawiyaa ma in xafiis la fadhiisiyaa ma in nin u soo galaa ma inay sirwaal qaadataa ma inay masarka iska dhigtay timaheeda bannaanka keentaa xuquuqaadkay raadinayaan waa intaa war xuquuqaadka allah idin siiyey ma ogtihiin mar hore in laydin aasi jiray war gabar walboo da'daa gabadhaa meesha fadhisaa gaarta waa xilliga ay gurmaho iyo ciyaalku ay soo kacayaan inta god laydin qodaa laydinku duugi jiray ilaahay baa diiday subxaana wa tacaala waidaa bushira axaduhum bilunfa dalla wajhuhu muswaddan wahwa kadiim haddii gabar loo dhalo waa xumaanayey wejigiisaa madoobaanayey gabar loo dhalay waxaad mooddaa 70 lacanadood inay wejiga ka saaran tahay ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به بنانك مصوبح يوايا قبر بالله دلي واحدين كدندرنا مجري واحدين كفول حما مجري ولا ليال ابيه كدلي هدو رجا اسكا قريو ابيه كدلي هدو اسكا قريا ددك هدوسن اخيارته سو اك فديسنين هدوسن ددك اخيارته اك ايمانين يتوارى وقومنيا واسقرنيا حمانتي لوغو بشاريي لبا مid bay ahaan jirtay ayumsikahu ala hun am yadussuhu fi turab inuu ciida isaga duugo waxaan xunay dhashay inuu carada isaga aasa ayadoo nool inta ka bacdi ama inuu iska haysto ihaano iyo dulli asagoon hadalkiisa la qaadanin labada mid ayay ahaan jirtay buu yiri ilaa subhanahu wa ta'ala dullinida loo dhalay ayuu diidan yahay ayadoo raba inuu xabaalaha isaga aaso qaar baa la tilmaamaa intay u soo qubeeyeen ay dar u soo labiseen ay dahab u soo geliyeen godna ay u soo qodeen wada garkay ciida ka tirtiraysa ay leedahay aabe asna wuxuu u wadaa inuu godka